My name is Hassan Osman Abdi, well-known Fantastic. waxay ahayd 2010 iyo 2 bishii January 28 waxa isla markii war isoo gaaray in uu dhintay isbitaal Madiina la geeyay anaga waa noo soo socday isbitaal Madiina meedkiisa aan ku arkay familkiisa oo taakuleen jiray ana cadaalad kama hadli kareen cadaalad hadii loo helay mar hore loo raadin lahaa cadaalad anada kama hadlaayay in warbixintii uu ka qoray musuqa dekada iyo xaaladihii siyaasadeed marka Cakrina taagana oo raadiyaha agaasimaha ka ahaa garan radio Shabeelle ay baahinayeen in uu markaasi ay sabab looga ligi karo inta aan Xasan la dilin ka hor waxa jirtay qabar ahaa in Xasan dad uu ka shakiyay oo ciidamada booliiska iyo ciidamada ammaanka u wargeliyay waa la qabtay laakiin wax natiijo dheeraad ah laga helin mana jirin baaritaan dhab ah oo ay hay'adaha amnigu sameeyeen oo ay natiijo ka soo saareen dilkii Xasan dhowr bilood kadibna muddadaas oo 5 bilood kadibna bishan oo kale June horaanteedii in xabsiga laga sii daayay laakiin ma ogi mana jirin meel maxkamadda kiis lagu dhageystay iyo sabab lagu sii daayay marka waxaan ka war helay kaliya in la sii daayay kaliya waxa fiirin kartaa in maxkamad ay dhacdo procedure-ka maxkamaduhu la wada marsiyo la dhageysto waxyaabaha aan rabi lahayn taas bay ahayd oo finally in cadaalad la helo waxaan codsanayaa in cadaalad la mariyo dadkii abahay dilay hadii oo ay noolyihiin oo meel lagu ogyahay cadaalad hadii loo heli karo la raadiyo